baanu iskala soconnaa dadku hadday wanaagsanaadaanna waan wanaagsananaya hadday xumaadaanna waan xumaanaya wuxuu nabigu inoo tilmaamaya qofka muslimkii inuu mar kasta isagu wanaagsanaado dad baa xun inaanu xumaanin waxa uu yahay Salmaan al-Farisi niman ku dhaqmaynin inna wajadna abana ala umma wa inna ala muhtaduunki abayaasha ayaa diin haystay intii baan iska haynaa ku dhaqmay laakiin xaqiiqo raadinaya nimankii wuxuu yiri asalkii diintan buu weydiiyey wuxuu kaloo jiinaasi hadday cidi ka timaado ila soo socodsiiya reerkoodii buu ku noqday aabihii iyo baadidoonkiisiiba ku dawaqay oo baadi doonayay ayuu u yimi ay bunayya ayna kunta buu ku yidhi aabba xaggaad ka dhacday meeshii aan kuu diray miyaanan kula ballamin buu yidhi wixii aan kaala ballamay meeye Salmaan xaqiiqadu u sheegay aabba buu yidhi qolaan oo kiniisad ku jirto tukanaysaan soo maray diintoodii markii aan arkayna waabay cajab gelisay sidii aan ula joogayna cadceedii baa ku dhacday odaygii markaa wuxuu ku yidhi laysa fii dalika diini khayr diintan aad sheegaysay aad u tagtay qolada tan khayr kuma jiro diintii aabbayaashaabaa ka khayr badan dabkaaga haysa buu leeyahy Salmaan wuxuu yidhi kallaa wallahi innahu la khayrun min diinina ma yaabo ilaahay baan ku dhaartay tani iyada teena dhaanta tanaynu haysanay ee dabka la caabudayay tan baa dhaanta odaygii markaa waxbaa qob yidhi wuxuu yidhi wiilkaba waa laga kaxaysan soo kan maaha arrinkii fogaaday wiilkana aad buu jeclaa waana nin maalqabeena wiilkiiba wuu xidha wuxuu yidhi gurigaa ku xidhnaado yuu bixin isagoo uga cabsi qaba inuu dee diinta ka baxo laakiin insaanka in la qanciyo oo wax la barajisa laakiin xadhig iyo xabsi ma xejiyo xadhig iyo xabsi marunbu qofku jaanis ku helaya oo kaaga baxo daas tiraahdo xadhig oo xabsi oo ilaali oo caynkan intaa kuma ilaashamayo wuxuu ku ilaashamayaa inaad wax barto oo qancisid oo wax u sheegtid Salmaan al-Farisi wuxuu leeyahay halkii buu aabbahay igu xidhay fariin baan u dirtay buu yidhi nimankii kiniisadda waxaan ku yidhi buu yidhi haddii shaam cid tijaari ka timaado dadka ugu badan ee waayadaa un dee socon jiray waxay safarada tijaarada sida safar tijaari hadduu shaam ka yimaado soo socodsiiya kadibna safar baa shaam ka yimi waa loo yimi oo waa loo sheego waxa la yidhi safar tujaara baa shaam ka yimi Salmaan wuxuu ku yidhi marka ay dantoodii iyo muraadkooda dhammaystaan ee ay noqonayaan marka soo ogeysiiya safarkani markuu xoolihiisa iibsadee wuxuu soo iibsadee dhammaysta danihiisa noqosho ku jiraan markaa uun iisoo sheega baan ku yidhi buu yidhi markii haddana u yimaadeena waxaa la yidhi waa dhaqaaqayaa waxaanay qabanayaan shaam markaas baan iska furay buu leeyay wixii ugu xidhnaa xadhiggii iyo wixii ku xidhnaa buu iska furay dabeetana wuu xidhxidhay Salmaan wuxuu ka tegayaa guri barwaaqaysan oo xoolo yaaliin oo maal yaallo oo magac iyo maamuus ku leeyahay wuxuu u socdaa meel aanu garanaynin oo horeba u arag cid aanu garanayno uu sii raacaya laakiin waxa uu u safraya waxa weeyaan inuu xaq helo noloshiisu inay mutma'in noqoto diin sax helo ayaa kala weyn cunadan iyo gurigan iyo waxan oo dhan walidaalka uu safarkan bilaaba qoladii buu raacay markuu raacay wuxuu yimi shaam markii uu yimina wuxuu ku yidhi war diintan cidda haysata ayaa ugu fadli badan bali tilmaama diintan maan rabaa bal inaan wax ku ogaadee cidda u aqoon yahansane ugu
يعني حق نما دين تنو هيستا إي شيغا أسقف في كنيسة بالله تلمام أسقف كوا نوع من بيشوب وذات كنيسة هيستا أيام تلمام وحلا يدي نينك أصبح دكتور رون نينكي كانوا يميري وحنقول إن يود دين تنبان دونية وحان ربا إن أنا ديك كوش شقيه أدنى حبرتد وأن دين تنا كابرته كلنا عبادة استو كل تكده نينكي وحولي فادخل صادف ده مركه سلمان جاي oo isbahaan ku taala isbahaan waa Persia shishe ayuu luka soo bilaabay Sham buu tagay waa safar aad u dheer safarka kumankumka kiiloomitir wuxuu maray inuu xaq raadiyo meeshii markuu yimina wuxuu yiri waryaa ugu aqoonsan oo diintan si fiican u garanaya waxa loo tilmaamay wadaad bishop oo kiniisad jooga ninkiina wuu yimi ninkii codsigiisii buu u dhiibtay inaan ku shaqeeyana waan rabaa buu leeyay inaad waxna i barto kulana tukadana waan doonayaa soo buu ku yiri laakiin tajribadiisii uu xaq ku raadinayay waxa galay hakad waxa uu la kulmay nasiib darro nimaanay diintu dhab ku ahayn nin shicaarka uu taagay iyo calaamada uu taagan iyo waxa uu rumaysan yahay meeshuu matalaya dhaqankiisa kalaana isku mid ahayn waa nin dadka yiraahdo sadaqadaysta wax la baxa kan sameeya xoolo soo ururiya dabeetana isagu iska qaataan masaakiinna siinin cid kalena siinin waa rajul suu waa nimaan si fiican u tarjumaynin diintii uu rumaysnaa wuxuu leeyahay ninka kani rajul sawin buu ahaa dadku sadaqada fari jiro oo uu ku boobi jiray marka loo keenana sadaqaadka loo soo ururiya isaga meel iska dhigan jiray buu masaakiinta muusin jirin ilaa ya uu ka urursaday buu yiri 7 qilaalku waa jarra weyn waa bahashan maxaa la yiraahdaa jalxad ashuun weyn 7 jalxadood ama ashuun oo waaweyn ayuu meel ku qarsaday oo urursaday wuxuu Salmaan leeyahay ninkan aad ayaanu nacay waad nacaysaa qofka markaad xaqiiqadiisa ogaato qof aad salahay diin ka dugso oo isagu dadka khiyaamaynayo guraya waxoogaagii masaakiinta loo ururiyay markaad aragto mabda ayay waxba uu ku nacsiinaya laakiin ninkan xaqiiqa raadis buu ahaa ninkan uu buu nacay ma oran ma diinta tan dadku wax khiyaameynayaan iska wuxuu arkay inuu ninkan si qaldan diinta uu isticmaalayo dhaqanka Soomaalida waxa ka mid ah ama Soomaali badan baad arkaysaa عربت هالشيء مكوليه وعربت دد خير لي دد حنبه واليه waxa laga yaabaa un mushkilad isaga ka soo martay in carbeed ama qaaday ama dafiray ama doonsaday ama eriyaday ama ka saaray ama inuu ku saleeyo diinta dhamaanteedba diinta iyo carabnimadu waa kala nooc rajul suu hadaad la kulantay ama rajul sawin nin xun hadaad la kulantay macnaheedu ma inay diintu xun tahay Salmaan wuxuu leeyahay ninkii baa geeriyooday markii ay damceen nasaarada aasaan baa waxaan ku yiri waryaareen ninka xun buu ahaa markaas waxa la yidhi maxaad ku garanaysaa waxaan yidhi ninkan sadaqadana uu idin fari jiray isagana urursan jiray maxaad ku garanaysaa waa ka kanzigiisa halkaa yaala buu yidhi halkaa ka raadiya meeshii baa la baaray waxaa la helay 7 ashuun ama 7 jalxadood oo ku jiro ذهب iyo waraq ka buuxa silver iyo fida silver iyo gold halka ka buuxa markay arkeen bay waxay yiraahdeen wallahi inaan aasaynin dabeetana inta la rajmiyay ba meedkiisii la salbiyay